Assalaamu calaykum. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Waa sheekadii kun habeen iyo habeen iyo qaybteedii labaad. Sheekadu waxay noo maraysay qaybteedii koowaad markii labadii boqor arkeen waxa ka dhacay beerta qasriga iyo habdhaqankii foosha xumaa ay ku kaceen dumarkii qasriga oo ay ugu horreyso xaaskii boqor Shaahiraan. Boqor Shaahiraan markuu arkay waxay xaaskiisu samaysay, caqligii ayaa ka duulay. Wuxuuna ku yidhi walaalkiis, nabad walaalow, aan meesha isaga tagnay. Waxba ugama baahnin boqortooyadan ilaa aan ka soo arkayno inay adduunka ku nool yihiin dad annaga nala mid ah ama dad naga liita. Markaas ayuu ka oggolaaday. Kadib labadoodii si wada jira ayuu baxeen, iyagoo uga baxaya qasriga qaab qarsoodi ah. Waxay safar ku jiraanba maalin dambe ayay geed hoos fadhiisteen iyagoo daalan. Geedku waxa uu dhowaa bad meesha ku taallay. Iyagoo meeshii ku nasanaya ayaa hal mar badii kacday, waxaana ka soo baxay waxaad moodo tiir weyn kaasoo cirka isku shareeray. Markay arkeen aad ayay u cabsadeen, iyagoo geedkii si degdeg ah u fulay, siina fiirinaya bal waxa badda ka soo baxa iyo wuxuu yahay. Mise badda waxa ka soo baxay waa cirfiid aad u weyn, aad u dheer, aad u feedho weyn. Waxuu madaxa ku sidaa sanduuq aad u weyn. Cirfiidkii sidii uu u soo socday ayaa waxa uu yimi geedkii ay saarnaayeen labadii boqor. Markaas ayuu geedkii hoos fadhiistay, wuxuuna furay sanduuqii weynaa. Markaas ayuu ka soo dhex bixiyey sanduuq kale. Markaas ayuu furay. Waxaa ka soo baxday gabadh aad moodo xuuro lacayntii jannada, quruxdeedana aad yaabayso sidii dayaxa u faysaa. Markaas ayuu cirfiidkii ku yidhi, boqoradaydii xorta ahaydey, waataan ku soo afduubtay habeenkii aqalgalkaaga ee waxaan rabaa inaan xoogaa yar seexdo. Markaas ayuu seexday. Gabadhii iyadoo meelaha fiirfiirinaysa ayay waxay isheedu qabteen labadii boqor ee saarnaa geedka. Markaas ayaa ay inta ay xaggoodii soo fiirisay u ishaartay inay soo degaan. Waxay dhaheen, waxaan ka cabsanaynaa cirfiidkan weyn. Waxay ugu hanjabtay haddii ay soo degi waayaan inay kicinayso cirfiidkan. Kabacdi way soo degeen. Gabadhii jeebka ayay gacanta gelisay, waxayna ka soo bixisay in ka badan 570 faraanti. Waxay ku tiri, ma garanaysaan waxay yihiin faraantiyadan? Waxay dhaheen, maya, ma garanayno. Markaas ayay ku tiri, cirfiidkan aad u jeedo waxa uu isoo afduubtay habeenkii aqalgalkayga, wuxuuna igu xidhay sanduuq isagoo ku xidhay 7 quful. Wuxuuna igu riday badda moolka suu iga ilaaliyo wax nina. Markay arrinkaa maqleen labadii boqor aad ayay ula yaabeen, waxayna is yidhaahdeen waxa ka daran tan tiin haysatay. Markaas ayay labadii boqor degdeg meeshii uga soo tegeen, waxayna ku soo laabteen boqortooyadii. Boqor Shaahiraan oo aad u xanaaqsan ayaa yimi qasrigii, wuxuuna amar ku bixiyey in loo soo qabto naagtii iyo jaariyadii iyo addoommadii. Dhammaantoodna korka ayaa laga gooyey. Intaas kuma ekaan boqor Shaahiraan wuxuu amar ku bixiyey in habeen kaste gabadh cusub loo guuriyo, subaxiina korka laga gooyo. Wixii sidaas xaalku ahaaba muddo 3 sano ka bacdi waxa la waayey wax gabadh ah, oo gabdhihii waxay isku bedeleen wax la dilay iyo wax cararay. Wasiirkii u qaabilsanaa boqorka dhanka guurka maalintaas markuu soo waayey wax gabadh ah oo u dhiso, ayaa uu gurigiisii yimaaday isagoo aad u murugaysan. Wasiirku waxa uu dhalay 2 gabdhood oo aad u qurux badan. Midda weyn waxa la oran jiray boqor Shahrasaad, midda yarna waxa la oran jiray Dunyasaad. Midda weyn ee Shahrasaad waxay ahayd gabadh mutacallimad ah, waxayna baratay in ka badan 1000 buug oo ku saabsan taariikhda iyo sheekooyinkii hore. Shahrasaad waxay ahayd gabadh aad u caqli badan, waxayna aragtay aabbaheed oo wejigiisa murugo ka muuqato. Waxayna ku dhahday, aabbow, maxaa kugu dhacay oo aad sidan oo dhan la murugaysan tahay? Markaas ayuu wasiirkii gabadhiisii u sheegay sida ay wax u jiraan. Wuxuuna ku yidhi, waxaa layga rabaa inaan caawa boqorka gabadh dhiso. Haddii aan u dhisi waayana korka ayaa laga goynayaa. Markaas ayay Shahrasaad aabbaheed ku tiri, aabbow,
aniga ii guuri. Laba mid unbay noqon in la idilo ama inaan madax furasho u noqdo gabdho badan oo muslimiin ah oo halaagsami lahaa. Markaas ayuu wasiirkii ku yidhi gabadhiisii, waan ku cabsanayaa ee naftaada halisa gelin. Markaas ayay tiri, waan ku qasbanahay, waa mid lagama maarmaana taasina, aabay guuri. Markaas ayaa wuxuu wasiirkii gabadhiisii ku yidhi, waxaan kaaga cabsanayaa inay kugu dhacaan wixii ku dhacay dibigii iyo dameerkii uu ninkii beereeda lahaa. Markaas ayay tiri, oo maxaa ku dhacay aabbow? Halkaa aynoo joogto qaybtii labaad ee sheekada Kun Habeen iyo Habeen. Fadlan haddii aad doonaysid inaad si taxanaa ula socoto sheekada, naga mid noqo oo nagu soo biir.